waxaan iskugu nimi dan kaliya iskugu wada nimi waxayna soo dadacaa halka iskugu yimi dantayna iskugu nimina waxa weeyaan labadeena musharax sidaynu ugu codeyn aynu waxaan ku dhuu taageerlayn in baynu iskugu nimi dan kaliyana waynu wada leenahay marka waxaan doonayaa xafladu way noo furan tahay in lagu soo wada dhawaado qof walba inuu ka hadlo waxaan leenahay ma sha Allah aynu garab taaganahay hiiliyahoona waynu garab siinaynaa xildhibaanadeena si aynu ugu soo baxaan iyo xisbigaba insha Allah biidnillah waxay rajaynaynaa inaynu guuliyo gobonimo in la istaagno aniga ku hadlaya afka mas'uuliyiinta xisbiga wadani aad iyo aad baan soo dhaweynaya dhamaantiin waxaa la soo dhawaada labadeenan xildhibaan ee aad ku qaaliga xildhibaan Yuusuf Saciid Axmed iyo xildhibaan Cabdiraxmaan Axmed Aadan labada wahiil iyo hoobay nooga baahayn hadduu alla yiraahdo inaanu garab taagana way nooga baahayn haddii lahay mas'uuliyiintii xisbiga wadani mar walba waanu ag taaganahay waanu la shaqeynaa dhamaanteen waxaan leenahay hadduu alla ilaahay garbaha la isqabsado qacmaha la isqabsado ayaan insha Allah taala idin rajaynayaa hadayaan hooyaan wahay inana wayna adeerka embeedaaban wahayba ducayeelkii banadaan ku iga aqbal insha Allah bidmilaahi kiran ducaan ku hooriyay oo dilaha yar saqda higaada quraanka waan isku hareynaya dadkana waxay idinka dhigay hooyay yaabo Allah halka martaan malabku diinta buluq insha Allah bidmilaahi kiran halka wajigiina saartaan wana ka muta دادي الدنيا داعي يكون قوي إن شاء الله بسم الله كنا دونك تاجرين آخرنا تيران شابين تلي بان دي بريشة محمد تجا أن حفلة الواتي كوان حفلة هنا إياها ولهنو ويستبصوا عضونا إن شاء الله عاوينوكو وقتي كامبينكا والأبتين وإير باي إنو ظهري مركا ما دام أين المشرحين تينو عدو هنينو هاو dadka codeeya waa dhalinyarada iyo haweenka waxaanu aad iyo aad ugu guwaabinaynaa gabar kasta marwo kasta inan kasta iyada iska daayo dadka jaarka ah inay soo jiitaan mid walba waxaanu ka rabnaa inay 3 qof ama 2 qof ay ku soo kordhiso xaafadda ay guriga ay ku nooshahay inaad taa ku fakirtaan oo codkeena u baqan mayno marka aan saar leeyahay labadan musharax waa ogtiin oo waxay ka soo jeedaan beel saaxadda ku cusubaa waa beeshii xildhibaan Axmed Maxamed Diiriye soo saartay gelinka hore ee aad ogeydeen sidaas leeg xildhibaan Axmed Maxamed Diiriyena maanta golaha wakiilada waxa lagu magacaabaa xildhibaanada insha Allah waxaynu rajaynaynaa labadeenan xildhibaan inay noqdaan xildhibaanada deegaanka iyo xildhibaanada wakiilada xildhibaanadooda waa laba nin oo u qalma oo aynu soo xulay xul baynu ku keenay marka aad iyo aad waxaan ku guwaabinayaa hawlihii imika inoo bilowdeen ma dhawa maxaynu ka filaynaa Yuusuf iyo Cabdiraxmaan waxaynu ka filaynaa bartii nacnacmariyay inay toobiyihii nacnac qaada taariikhdu iyadaas qorta nacnacna waxaynu u fadhinaa oo aynu ka fikiraynaa abaalmarintiisii inaynu asagana baadin doono aynu hadda caawa bilowno sidaynu u abaalmarin lahayn Yuusuf iyo Cabdiraxmaan waxaynu ka filaynaa bartii nacnacmariyay inay maraan taasaynu ku qiimeynaynaa marka la doorto ee waqtigu ka dhamaado kadib saasay dumarku waa halku bulshadu ay ka dhisantay bulsho aan dumarkeeda qiimeyn ma aha bulsho jirta maamuus iyo sharaf iyo taageero iyo garab istaag ayaa haddaynu ragnahay la rabaa inaynu siino hooyooyinkeen iyo gabdhaheen iyo hablaheen iyo dumarkeena noolaada idinkuna 2000 iyo waxoogaygii markii labada xildhibaanna waynu qaybsanay oo talaale isku tago waxay labaynu soo saari karaynaayo keen nacnac waha haashan galbeed nacnac baynu soo doorano marka laga hadlayo Soomaaliland waxaynu ahayn hirka meelaha hirka baynu ahayn maanta waxa la inaga doonayaa tiyo kale la inaga doonayaa hiilkuna maanta waxa weeye sidoo raggii horeba halkan ka sheegay hiilku waa kaarka
iyo qofka waxaad ku soo saaraysa kaarka weeyaan qofka aan kaarka haynin waxba ma tarayo marka waxa weeyaan qof aan qaadin kaarka hadduu jiro ha la qaato kaasi waa keeda kale waxa weeye waxa loo baahan yahay doorkii aynu ku lahaan jirnay maanta ninka dhaca la odhan maayo wuu tala xuma waxba mu ahayn baa la odhanaya yaa soomaalida waxay tiraa wixii qayrkaa qabo qosolkaa ku dhan waa idinkaa arkaya waddanka waxa ka socda nin waliba dadka xafiiltabaya labaynu ku filan iyo saddex baynu waxa dhacay wayda arkayna innagu marka la leeyahay baarlaman waa inoo yuusufu waa xildhibaankeenii degmada hargeysa marka la leeyahay golaha deegaanka hargeysa waa cabdiraxmaan degmada hargeysa marka la leeyahay golaha deegaanka hargeysa waa cabdiraxmaan hadal iyo hilbaba kala qalan haddaan noloshu qaab iyo qormayo han dhalinayn qarannimo ha joogtay qaraf baan shidi karin war haddaad imika tidhaahdo waan hawl baan wadaya hawshiina aanad ka midho dhalinahayn weligaana qaraf baana shidi karin laba qaraf ayaanad kabriid baana shidi karin waxaan doonayaa in awooddeenna iyo isku xidhnaashaheenna iyo isku dubnaashaheenna sidii shalay loo arkay maantana loo arko waxaa kaloo doonayaa waktigu inkastuu gaaban yahay in maanta meel looga soo wada jeesto labadaa xildhibaan ee maanta aynu wadano waxaa kaloon doonayaa in arrin adduun maamuus sharaf intaba way naga mudan yihiin maanta nin kastooba wixii aad maanta awooddaada gelin karto hadal iyo qorshaba waa inaad ku darsataa anigu hayn badan ma lihiye laakiin guri baan ugu deeqay labadaa nin furayaashoodiina waa kuwa maanta igala wareegaya marka qof kastooba taageero af iyo adinba waa lagaaga baahan yahay runtii labadan gole aan aniga iyo yuusuf maanta u soconno mid waynu ka maqneen markii hore midna waxaa inoo joogay xildhibaankeenii qaaliga ahaa axmed maxamed diiriye xildhibaan nacnac runtii xildhibaankeena ilaahay khayr ha siiye wuxuu inooga tegey raad raac fiican buu inooga tegay oo waddadiisaasun annagana ilaahay naga dhigay inaanu marno annagana na lagu tilmaami doono sida isaga halkaa looga yaqaana xildhibaanka xildhibaannimada annaguna waddo khaldan aanaan marina tiisi inaanu raacno annaguna naanistaana loo saari doono xildhibaanka xildhibaannimada insha allah runtii degmada hargeysa caasimadda aan anigu u sharaxanahay dowladda hoose way leedahay dowladda hoose ee inoo shaqaysana runtii dayac fara badan baa ka muuqda taasna macnaheeda lama odhan karo inaanay magaaladu dakhli iyo dhaqaale aanay lahayn dhaqaalo way leedahay laakiin waxaa khaldan nidaamka loo maamulo iyo dadka lagu aaminay ayuunbuu khaladkuna xaggiisa ka yimaadaa insha allahu waxaanu rajaynaynaa inuu ilaahay naga dhigo kuwii caasimadda aynu ku noolnahay bilicdeeda iyo nadaafadeeda iyo quruxdeedaba kor u qaadi lahaa insha allahu hargeysa wixii ay mudnaydna way naga heli doontaa hadduu ilaahay yidhaahdo annagoo ugu shaqayn doonaa daacadnimo iyo intaanu awoodno ilaahayna nagu ogyahay insha allah maadaama hawshaas iyo xilka maanta halkaa u fadhidaan ay tahay in aad soo saartaan cid sharaftiina xambaarsan somalilan idinka dhex muuqata sharaftiina aad muujisaan annaguna idinma dayici doono insha allahu waxaan noqon doonaa qaar raadkii oo jeexay hogaamiyaheenaasu mara cid walba hogaamay leedahay rumayshay leedahay insha allahu gaarigeeda aytaan ku noqon doonaa intaa kadib waa laydin sheegay kaadh qaadashadii hubka lagu dagaalamaya inuu yahay kaadhkeena haysataan horta qof walba halkii aad ku ridday horta imaka inoo hoy inuu yahay leeri kale inoo soo dhaweeya mideer baa inoo hadlay si ay qof walba usii tilmaaan u daydayin maalinta qof walba kaadhkaayo waa xafad rasaasoo wax ku tooganayne inoo sii diyaariyo meel adag inoo sii dhigaa ku ogtigiin aswaataa cidda aan kaadhka qaadanin sidii dadkii iga horreeyey hadle ay sheegeen waxaan ka codsanayaa in aad gaadhaan telefoona kula hadashaan isa soo ogaataan xaafadba xaafadda xigta ay weeraysato kaadharkaa looga ceshay loo haray farsamo aynu ku daranno oo aynu ku qaadanaa haddii aan aynu